Assalaamu calaykum maalin wanaagsan meel kasta adduunka ka joogtaan. Waxa aynu maraynaa dooxii magaalada Hargeysa oo dad badan iyo biyo badan ay marayaan galabtan. Roob aad iyo aad u weyn ayaa ka da'ay magaaladii Hargeysa caasimadda Somaliland. Waxaynu tegi doonaa xaafadaha Jameeca Weyn. Waxaynu isla eegi doonaa jawiga kala duwan iyo roobku marka uu ka da'ayo magaalada Hargeysa sida ay u eg yihiin waddooyinka, sidoo kalena waxyaalaha iska beddelay magaalada. Haddii aad ku cusub tahay channelkan, subscribe, like, share, kana mid noqo asxaabta sida joogtada noogu xidhan. Waddadan waxa ay dhanka bari ka martaa iskuulka Baxrayn. maadaama xaafadani ay u dhowdahay dooxa, waxaa jira laago fara badan oo biyaha loogu talagalay inay maraan waqtiyada kala duwan marka uu roobku da'ayo. Sidoo kale waddadan hadda aynu marayno berigii hore waxa ay ahayd waddo aan sidan u dhisnayn, balse hadda waddadan waa la casriyeeyey, waxaana loo sameeyey meel ay biyuhu mari karaan. Sidoo kalena intii hore waa ay ka dheer tahay. Halkan hadda aynu marayno waa mid ka mid ah xarumaha cusub ee dowladda hoose ay ka hirgelisay ee degmadan laga maamulo. Roob aad iyo aad u xooggan ayaa da'aya, xataa waxa uu qarinayaa gaadhiga aan saaranahay muraayadiisa. Si jawigan iyo muuqaalkan aad u aragtaan, waxaanu isku daynay inaan hareerta idinka daawatiino magaalada. Jameeca Weyn waa xaafadii ugu horreeyey ee laga aasaaso magaalada Hargeysa. Sidoo kale waxyaalaha xusida mudan ee lagu soo kordhiyey magaalada iyo caasimadda waxaa weeyaan ishaarooyinka kala hagaya gaadiidka. Waqti yar ayaanu sugaynay intii ay ishaaradu isku beddelaysay midabka akhtarka ah, si annaguna aanu xadkeyga u galno amba aan u leexanno. Markaa jawiga maanta waa uu roobna. Sidoo kale waxaynu eegi doonaa muuqaalkan bal magaalada Hargeysa iyo xaafadda Jigjiga Yar iyo xaafadaha u dhow bal jawigu siduu yahay maalinka ku xigta ee daawashada. Waayahay, hadda waxaanu toodaalkayga ka soo bilaabi doonaa agagaarka Sacaadadiin. Sidoo kale waxa aynu dhex maraynaa waa waddadii Boqol Jire. Koonfurta magaalada waxay naga xigtaa xaafadii Badda Caseed amba Boqol Jire u taqaanaan. Sidoo kale xaggan waqooyiga waxay naga xigtaa xaafadda Jigjiga Yar qaybteeda galbeedka. Waxa aynu tegi doonaa ilaa iyo dhismayaasha cusub ee laga hirgeliyey sida hoteelka caanka ah ee aad wada taqaanaan. Hoteelkan hadda aynu soo dhaafnay waa hoteelkii Hamdaan. Sidoo kalena waxay naga sii horeeyaa Degelsame amba meesha aad u taqaanaan waddada Dabla Taagay. Halkaas aynu bal iyadana soo eegi doonaa muuqaalkan isha ku haya. Hoteelkan hadda waa hoteelkii Hamdaan. Hoteelkan waa hoteelada ugu cusub ee laga hirgeliyey sanadii u dambeeyey magaalada Hargeysa. Muddooyinkii u dambeeyey magaalada Hargeysa waa ay koraysay, hadday tahay dhinaca ganacsiga, waddooyinka, dhismayaasha, waxbarashada, caafimaadka iyo isku socodka magaalada. Hadday tahay shirkadaha gaadiidka, kuwa alaabaha qaada, kuwa gobollada u kala goosha amba bulshada qaybaheega kala duwan u adeega. Sidoo kale waxaad arkaysaan kaalmo fara badan oo ah kuwa shidaalka, gaadiidkuna ay ka shidaal qaataan. Dhismahan cad ee inoo muuqda waa dhisme isaguna cusub
oo loogu talagalay inuu noqdo mool amba goob ganacsi oo meherado kala duwan laga furi doono dhowaan. Waxa uu noqon doonaa mid bilic iyo qurux ku soo kordhiya magaalada, xagga dhaqaalaha iyo ganacsigana wax badan ka tari doona xaafadan. Waxyaalaha cajiibka ah ee magaalada Hargeysa aad ku arkayso waxaa ka mid ah in ganacsiyada noocyadooda kala duwan loo sameynayo hadda xaafad kasta. Muddooyinkii hore waxaa ganacsiga iyo wax kasta oo looga baahdo suuqa looga doonan jiray suuqyada waaweyn sida suuqa hoose, suuqa waaheen amba shiraaqle iyo gobonimo, balse hadda waxaa muuqda in xaafad kasta sideeda ay u rabto inay isku filnaato haddii ay tahay wax kasta oo suuqa hore looga doonan jiray. Taasina waa horumar. Waddadii dab la taagay ayaynu hadda maraynaa. Waddadan xaafadda Jigjiga Yar waxa ay aad iyo aad caan ugu tahay in goobo kala duwan oo ganacsiga noocyadiisa ah laga sameeyey. Sidoo kale waddadan haddaynu xusno beryihii hore qaabkan hadda ay u dhisan tahay may ahayn. Waddadu markasta waa ay burburi jirtay, balse hadda qaab wanaagsan ayaa loo dhisay. Sidoo kalena labada dhinacba waxaa loo sameeyey meeshii ay mari lahaayeen biyuhu si aanay waddada u dhaawicin, waqtiga ay jirayso waddaduna uu u dheeraado. Waxaynu arkaynaa agabka iyo maryihii kala duwanaa ee ganacsiga, bangiyadii. Sidoo kale waxaan iyadana halkan aad ku arkaysaa goobaha kireynaya guryaha iyo dhismayaasha hadday iibinayaan amba waxaynu u naqaano real estate-ka, maadaama xaafadda Jigjiga Yar iyo galbeedka magaalada Hargeysa dadku aad ay u jecel yihiin inay degaan amba ay ka samaystaan goobo ganacsi. Sidoo kalena qiimaha dhulka magaalada Hargeysa xaafad kastiba waa ay ka duwan tahay xaafadda kale iyadoo loo eegayo adeega xaafaddaasi laga helayo sida waxbarashada, biyaha, leyrka, inta ay suuqa u jiraan iyo adeegyo kale oo fara badan oo qofka raba inuu xaafad dego inuu ku qiimeeyo. Xaafadanna waa xaafadaha ugu wanaagsan xagga degista, sidoo kalena iminka yeeshay goobo ganacsi oo aad iyo aad u muhiim ah. Dalkeenna waxaa inta badan laga isticmaalaa gaadiid, welibana gaadiidkaasi ha u badnaadaan gaadiidka sakanka amba hore loo soo isticmaalay. Maadaama dalka dhaqaalihiisu uu soo korayo, dadkeennu waxa ay aad u isticmaalaan gaadiidka lasoo isticmaalay. Hadda waxaad arkaysaa inay bilaabmayaan gaadiid cusub oo bacdii laga jaray amba aan hore loo soo isticmaalin, inkasta oo dakhliga qofka iyo dhaqaalaha ay ku xidhan tahay. Dadkeennu waxyaalaha ay u jecel yihiin inay isticmaalaan gaadiidka lasoo isticmaalay waxaa ka kow ah waddooyinka ay hore loo mari jiray. Hadda waddooyinkii aad iyo aad ayaa loo wanaajiyey, sida awgeed waxaad arkaysaa in gaadiid cusub ay meesha yimaadeen. Fikirkaaga nala wadaag waxyaalaha ugu muhiimsan ee lagu soo kordhin lahaa magaalada amba magaalooyinkeena aynu degno si horumar wanaagsan loo gaadho. Aadna waad ugu mahadsantihiin daawashada muuqaalada aan halkan idinku soo gudbino ee khuseeya horumarka magaalada iyo wax kasta oo iska beddelay. Halkan hadda aynu soo gaadhnay waxay u dhowdahay isgoyska sare ee Jigjiga Yar. Waddada galbeedka u leexanaysana waa waddadii Xiraawur tegaysay. Haddii aad hore u socotana waxa ay ku geynaysaa
Mansoor Hotel. halkani waxa ay caan ku tahay hoteelo la dego oo la seexdo qiimahana macquul ah, sidoo kale goobo lagu nasto ayaa u dhow. muuqaalka xiga waxaynu kaga hadli doonaa goobaha ugu wanaagsan ee laga samayn karo meherado ganacsi magaalada Hargeysa ku yaala. haddii muuqaalkan uu ku cajabiyey, waxaad samaysaa comment, like, share, nugula wadaagna fikirkaaga. sidoo kale meesha aad naga daawanaysana commentiga noogu reeb. aad baad mahadsantihiin. waa inoo iyo muuqaalka xiga. asalaamu calaykum.